Jamaal Khashoggi inta uusan dhiman waxa uu gacanta bidix mar walba ku wadan jiray saacad nooceedu yahay Apple Watch waana saacad casri oo maskax cajiib saaran tahay waxaana lagu duubi karaa barnaamijyo badan waxayna la shaqaysaa inta badan telefoonka iPhone-ka saacadan ayaa kuu suurta gelinaysa adoo gurigaaga uga tagay telefoonkaaga inaad haddana ka jawaabi kartid telefoonada kuu soo dhaca ama fariimahaaga waxaad kala socon kartaa xisaabta bangigaaga ciyaaraha ama saacadaha ay diyaaradaha ama tareenadu baxayaan waxayna ku hagi kartaa hadba meeshii aad doonto waxay kugu turjumi kartaa luuqadda aad doontid waxaadna ka dhagaysan kartaa muusiga ama heesta aad jeceshahay haddii aad sport ciyaarayso xitaa waxay kuu sheegi kartaa wadnahaaga garaaciisa waana saacadda uu active gareeyay ama uu shitay Jamaal Khashoggi inta uusan gelin safaaradda Sacuudi ku leeyahay dalka Turkiga wuxuuna telefoonkiisii iPhone-ka ahaa ku aaminay gabadhii u doonaneed ee Khadija Jamaal kuma uusan tashan inay sugayaan kooxo wax khaarijiya oo daraadiis diyaarad ingeed uga soo qaatay dalka Sacuudiga Jamaal Khashoggi markii uu galay safaaradda durbadiiba waxa galbaduubay rag ka tirsan laamaha sirdoonka Sacuudiga oo tababarnaa khaarijinta waxayna qabteen halbowlaha qoorta mara ee maskaxda dhiigga si ay u suuxiyaan waxayna u jiideen xagga xafiiska safiirka waxayna markii uu soo maaxay ku bilaabeen inay faraha hore ee gacmaha ka gooyaan ilaa ay markii dambe isaga oo nool jirkiisa xubin u jirayeen safiirka oo argagaxay ayaa weydiistay inay meesha kala tagaan oo ay meel kale ku soo diraan laakiinse isagii xitaa waxaa loogu hanjabay haddii uu rabo inuu sii noolaado marka uu Sacuudiga ku soo laabto inuu afkiisa xiro laamaha sirdoonka ee Turkiga ayaa iyaguna la sheegay inay kamarada kala socdeen bilow ilaa dhamaad nimankii Jamaal Khashoggi dilayay ayaa markii dambe arkay saacadan Apple Watch oo iyadu macluumaad duubaysa waxayna isku dayeen inay masaxaan saacadan waana u suurtageli weyday gabadha Khadija ee u doonaneyd Jamaal Khashoggi oo weyday ayaa weydiisay qolada ilaalada ka ahayd safaaradda waxayna u sheegeen inaysan arago ninkan uu baxay waxayna ogeysiisay laamaha sirdoonka dalka Turkiga oo markii dambe cadeymo cadcad ku helay iyo sidii loo khaarijiyay iyo waliba dhiigii dhulka ku daatay oo ay ku cadeeyeen aalad luminolka loo yaqaano oo iyadoo iftiimisa dhiigga haddaba dhagartan uu galay boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa hadda loo saaray nin madow oo isagu jenaraal oo la yiraahdo General Al-Asiri oo ka tirsanay alaamaha sirdoonka si loo bariyeelo boqorka Sacuudiga ee dhagarta geystay waxaana sharsan hadda guddiga majliska shuurada ee boqortooyada Al Sacuud oo ka fikiraya bal wixii ay ka yeeli lahaayeen haddii arrinkani qaboob waayo oo boqor Salmaan bal sidii ay u casili lahaayeen si arrinkan loo qaboojiyo